nimankan maqaayadan inta yimaadaan waxay arkayaan ninka reebaadiyaha soo fiirinay kadib waxay go'aansadaan inay ku baashaalaan tiishi basbaas inta ku shubaanay cunayaan asagana wuu ka daba sameeyna xogaa uu ruugayo ugu dambeyn basbaaskiya ku kakacayo kuwana waa kuwana si kal iyo laabay ninkan ugu baashaalaan midkan wuxuu taagay markayga waa isugu ninkan ugu baashaalay basbaaskii intuu soo qaato gacanta ku shubana iyadoo oo midkan daawanay kadib wajiga marmarsana kana wuxuu taagay waxaas naaga waxay wajiga marsadaan waa umaleena ilaa nimankan waa marsadaan waa inaan marsadaa kadib asagu si kal iyo laabo wajiga ugu gubana ugu dambeyn ayagu waxay u wacayaan midkii maqaayada ka shaqeynayay isaguna wuu ka daba wacay kadib waxa uu keenay menu-ga ee cuntada ka dalba lahaayeen midka reebaadiyaha wali yaabiyan waraaqadan loo dhiibay laakiin ayagan in loo dhiibo arka biisay dalbanayaan asagana biisadii ka daba dalbana markii loo keenay waxa uu maleena canjeelo la buufiyay oo la qalajiyay kuwana waxay go'aansanayaan inay mar kale ku baashaalaan biisadii intay galaas ku dhaxridaan ku qasayaan kadib way cabayaan isaguna nimankan dhaqdhaqaaqooda kor ka daawanaya wixii ay sameynayeen ka daba sameeyna biisada markii uu galaaska ku shubay oo isku qasqasay oo cabay ma ka helaya dhadhankeeda kuwana mar saddexaad waxay go'aansanayaan inay ku baashaalaan midkaan dhiga qabsanayo isagoo isdhahay cunada marka la cuna alaabtan la sameeyaa oo ka daba sameeyna sida midkii hore sameynay ugu dambeyn isagoo daalan oo meeshiisii ku soo laabana kuwana intay soo baxaan waxay u imaanayaan ninkii maqaayada kana wuxuu ku dhahaa buugayga lacagtu qoraan lacag hadda ma hayi ka maqaayada iska lana wuu ka ogolaanay isagoo u sheegay inay soo dadaalo midkii reebaadiyaha nimanka hadalka dhex marayo dhan wuu dhageysanay ninkii intuu u yimaado sida midkii hore wuxuu ku dhahaa aniga buugayga lacagtu qoraan lacag ma hayi laakiin midkan wuxuu ku dhahaa yaa tahay aniga ma ku aqaaniyay buugna ma ku furmbe ugu dambeyn muuqaalka wuxuu dhamaana isagoo raba inuu alaabta ku soo dhaqay leg noo saar nimankan aad u jeeday maqaayadan ay waxay ka dalbadeen biisi kadib biisi markii loo keenay mid kamid ah biisi inta loo orday wuxuu gelinaa boorsada ninka indhoola iska leh nimankan sidaa dhan waxa uu sameeyaan wax kala ma ahan lacag ma haystaan kadib midkan booskiis markuu ku soo laab saaxiibkiisa ay wuxuu ku dhaaday maxaa ka qaldan ninkaas indhoolana maxaa u gelisay biisa isagana wuxuu u sheegaa ninkaas markuu banaanka u baxaya biisaha ka qaadanayna isdaji adigana ha ka walwalin ninkii maqaayad intuu wacayo wuxuu ku dhahaa kaala adiga maqaayad laana wuxuu ku dhahaa maxay idinka caawiya kadib midkana wuxuu ku dhahaa waxa noo keentay maxaa adiga midkana wuxuu ugu jawaabaa aniga booska maqaayada ayaan ahay maxaa idinka caawiya hadda ii sheega idinka kadib midkana wuxuu ku dhahaa waxa tahay waa noo sheegtay waana maasantahay ee sabaadan qaleelka maxaa anaga biisa ayaa dalbanay kadib kii maqaayada iska leeyna markuu arka nimankan waxay dalbadeen waxa ahan in loo keenay wuxuu ku dhahaa hadda raali noqdo anay idin keenay waxa rabtiin ii sheega ayagana waxay ku dhaayaan anaga waxa hadda u baahanana ma jirto maqaayadana waa iskaga tagayna anaga banaankii markay u soo baxeen midkana wuxuu ku dhahaa saaxiibo labadii raashin ee gudaha ay nagu jiraan hadda maxaa sameeyna anaga isagana wuxuu ku dhahaa ninka indhoola inta ka soo baxay sugayna markuu soo baxnay boorsada inta ka dafna ayaa waxa kala baxayna biisi ugu dambeyn midkii indhoolay ayna raashinka waa uu dhamay kadib boorsadiis inta soo qaata ayuu soo baxay isagiina maskiinkiina ugu dambeyn banaankii wuu soo baxay kuwiina way sugayaan adiga ay fiirsanayna muuqaalka laagama saaran weli labadii nin tuugada ayna waa kuwan geedkan ay ku dhumunaa kadib midkaas ka soo bixray ayaa saaxiibkiisa qabanaya booskii maqaayadan intuu istaaji ayuu wuxuu ku dhahaa waxaan rabaa inaan lacagtan ku sii isagana wuxuu ku dhahaa intay darjid ma hadana lacag igu daraysa isagana wuxuu ku dhahaa ilaahay ayaa wax walba isiin doona adigana lacagtan iska qaad ee hadana iska sii bax maskiinkaana wuu soo baxaa isagoo jidka iska soo maray ayaa kuwii intay ka soo daba ordaan ay waxay bilaabaan inay boorsadii ka tafaa kadib isagana boorsadii waa uu kula dhagaa kadib midkaana saaxiibkiisa intuu la hadlayo wuxuu ku dhahaa waa cigooweyna meeshaana jid wuxuu ku dhahaa ninkan ilaa luuq oo ka galaa waa sugayna anaga maskiinkaana intuu soo carra ayuu wuxuu fadhiisanaa geed agtiisa laamigii ku yaalay kadib wuxuu taagan yahay nimankan waxay boorsadii karaan wax kale ma aan wax ku dhex jiro waa inaan fiiriyaa isagana intoo boorsadii uri ayuu wuxuu ogaanaa inay biisa ku dhex jiraan kadib markuu furnay wuxuu arkaa biisi oo run ah kadib intoo gacanta la gal ayuu biisi mid kamid inta soo goosta ayuu wuxuu taagan yahay ilaahay mar labaad adiga ii qor biisahan labadii nin biisi soo dhacayna waa kuwa ayagina waxa ka doo dhareer waxayna taagan ninkan maskiinka aan waxa ku sameeyna mid dilna ma soo iska dhaafnaa kadib midkana wuxuu ku dhaayna iska dhaafnaa yaa noran wax faa'iidana ma laha dilkiisa ninkan biisi sidan ayuu ku dhamay muuqaalkan intaan ayuu ka ekaadaa inta soo gaartay laagno saar nimanka maqaayadana biisa ka dalbadan kadib biisi markii loo keenay midkan wuxuu bilaabay saaxiibkiisa inuu shaarba ka xiro shaarba saaxiibkiisa oo ku xiro intoo qabta ayuu wuxuu ku darayaa biisi saaxiibkiisana wuxuu u sheegay hadii CC camera laga arko maxaa sameeyna anaga waxaas ay sheegayso waxba kama jiraan maqaayadan camera kuma xirna waxaan rabaa ninka maqaayad iska leh inaan waco nimankan shaqada laga buriyo ugu dambeyn nimankan waxay go'aansanayaan inay wacaan ninka maqaayad iska lahay kadib wuxuu weydiinaa xagee joogtaa isagana wuxuu ugu jawaabay waxaan joogaa maqaayada agtiisa hadda ayaan gaariga ka soo degayaa ee maxaa jiro isagana wuxuu ugu jawaabay maqaayadada waxa maanta lagu dhex sameeyay wax fiican ma aha in aragta ayaan rabnaa booskiina wuu soo baxayaa midkan saaxiibkiisa wuxuu ka codsanaa inay qorshe isla ogyihiin ay degaan kadib midkan wuxuu iska fiirinaa dadkii kadibna wuxuu arkaa nin gadaashiisa jiifo intoo nax ayuu wuxuu dhaa ninkaasna muxuu ahay midkan wuxuu taagan yahay qorsheyna uu naga fashilma hadduu ninkaas oo na arkay annaga kadib intuu u yimaado ayuu wuxuu ku dhahay waxaan rabnaa inaan raashinkaas nala cunto biisa waa dhammeynlaana ee kaalniyo isagana markuu ogaado ninkan inuusan waxba maqlin kadib okeela intuu ka siib ayuu fiirinayaa wuxuuna ogaanayaa ninkan inuu indhoolo yahay intuu aad u farxayo saaxiibkiisa wuxuu ku dhahay qorsheyna waa inoo hirgashay ninkanna wax ma arkayo ee indhoolo waaye isagiina kursigiisa ayuu ku soo noqonayaa ninkii maqaayad iska lahayna wuu soo galayaa बुलाया आपको जी बताएं क्या मसला बन गया है साहब जी हमने पिज्जा ऑर्डर किया और इसमें इतने बाल गिरे हुए हैं क्या तमाशा लगाया हुआ है तुमने मुझे अपना किचन विजिट कराओ आइए
soo dhawaada asxaabe, ninkan doobi bareeska biyaha ku shubay wuxuu rabaa saaxiibkiisa inuu dilo. Kanna isagoo shaqada sii wada raba waxa uu imaanay saaxiibkiisa kadib shaqada jooji ayuu ku dhahaa. Isagana wuxuu weydiinaa sababta oo shaqada u joojinayo. Kadib midkan kaloo halkan fadhiyay wuxuu ku dhahaa saaxiibo shaqada iska bobsiino. Kanna wuxuu taagan saaxiibo shaqo fiican ku haya in keeno shaqada hadhow u soo laabay. Ugu dambeynna midkan saaxiibkiisii warkii uu ka maqlaa wuuna raacaa. Kanna wuxuu taagan waa iga fakaday maanta. Midkanna isagoo raba inuu doobi bareeski daarto waxa arkay midkii kale uu soo ordaa wuuna la hadlaa maxaa ka qadan ku dhahaa doobi bareeska u taala shaqada ma ahane. Kanna wuxuu weydiinaa sababta ugu celinaa inuu doobi bareeski daaro. Midkanna wuxuu rabaa inuu saaxiibkiisa iska dilo marbi wuxuu ku dhahaa kan sheeka ku haayay. Midkanna isla markii wuxuu weydiinaa saaxiib waxa ii sheegtay isagoo ku dhahaa. Kanna wuxuu u sheegaa inuu fasax rabo oo hal maalin ah. Isagana wuxuu u sheegaa intaas bisma ii soo wacday oo ku dhahaa. Wuxuu kaloo u sheegaa in waxaas wax la isku aysan een haddana oo shaqo dhan oo ka soo waday. Waxaas dambana hanoo soo wicin oo ku dhahaa haddana shaqadeen sii aaday kaalo ku dhahaa saaxiib wax yar leeyahay xoogaa lacag raba in isiid ciyalkii raba in soo booqdo. Niyo inta booska maqaya meesha adaa uu sareeyay keen lacagtan iyo isku dhijinni. Lacagtana ku siiya inta biilkaaga bisan ku siiya isdijiyo ku dhahaa. Kanna wuxuu u sheegaa lacagta inta tirida maxaa waa ku dhahaa miska soo fujiyo saaxiibo. Meeshii doobi bareeski biilu shuayna waxa gimaanay booskoodii. Isagana wuxuu gelinaa doobi bareeski waxaana qabanayda maasa waxaana arkay midkaas kalena kabtis inta siibto wuxuu aga fujinaa korontadii. Isla markiina waxa maqlayo kuwii kala weyn u soo kala cararayaan. Markay uu maadaana midkana wuxuu weydiinaa maxaa ku dhacay isagana wuxuu ugu jawaabaa inay koronto qabatay in keeno dhaha aan qaadnay. Midkana wuxuu bilaabaa inuu ooyo maadaama aabiis ay koronto qabatay oo ka dhintay hadda. Kuwan kalena way yaaban yihiin kana wuxuu ku dhahaa aabaha waa dhintay wax duca ah wax kale u tareeyay malaha. Midkan qayaanulooga ahna wuu istaagaa wuxuuna u sheegaa midkan inuu aabiisa gacantiisa u soobsaday. Wuxuu kaloo ku dhahaa saaxiib hadaatan waxa rabay in adiga ku dilo laakiin taasi badalkeeda hadda uu aabaha u dhintay waxaan rabaa in iska cafido. Asxaabe muuqaalkan wax ugu badan oo laga faa'iido inaysan qayaanada fiicneen. Muuqaalka hadda inta soo gaartay like iyo follow isku dar. Soo dhawaada daawadayaal labadeen oo jeedin gamekan dilan waxay dalbadeen biisa kadib ninkii biisi wadi oo maana wuxuu ku dhahaa biisiina waa kane. Midkan isla markii wuxuu weydiinaa lacagta meeqa isagana xoogaa leh oo dhaha kadib midkan lacagtii u soo baxaa uu tirina fartayo ka saara. Midkan kale gaajisay wuxuu ku dhahaa saaxiib hadda cunay isagana makiila wuxuu ku dhahaa badarka aadaabteeda sida ma aha waa inaan gacmaha soo dhaqnaa. Midkan wuxuu ku dhahaa inuu biisa leeyahay isagana wuu ka diidaa wuxuu ku dhahaa saaxiib waa inaan musqusha soo gashaa gacmaha iska soo dhaqdaa markaas kadib cuntada cunayna. Isagana hayo ku dhahaa wuu ka aqbalaa wuxuuna ku dhahaa saaxiib hadda caloosha laga hayo waa soo dhaqsana musqula aada ee siisu. Midkan kalena wuxuu rabay saaxiibkiisa inuu qayaano markuu ka tagay oo arkay wuxuu bilaabay inuu biisi cuno. Isagana saaxiibkiisa xabad uma reebay kulli waa uu ka dhameeyaa kadib uu fikiraa wuxuu dhahaa saaxiibka waa ka dhameeyay hadda maxaa sameeyaan biisi la'aan ha dhigine. Adigana muuqaalka hadda like ma saarin kadib marka iloodi hadda saar. Isagana wuu soo tagaa guriga imaana jikadii asagoo naxsan wuxuu dhahaa waa in saaxiibka hadda u sameeyay biisi imuuti ah. Kadib wuxuu rabaa inuu biisi si dhaqsi ah ku kariyo kadib waa kan saliid soo qaadaa wuu ku shubaa. Sawaayad dubneedo meesha taalo soo qaadaa kadib saliid ma marna haddana faranjeerka inta uu yimaado wax walba uga baahnaa oo meesha ka baxsana. Sawaayadiina waa tan wuxuu ka dhigay biisi kadib biisi inta la soo ordo wuxuu imaana meeshii uu fadhiyay. Saaxiibkiisana wuxuu iskaga dhigaa inaan waxba cuno biisi ilaa hadda sugay. Isagana wuxuu u maleeyay in meesha biisi fiican ay horeeyay saaxiibkiisa ma oga inuu qayaanay. Isagana wuxuu taayay alxamdulillah si kale ilaa biisi waa cuni karaa. Kii kalena waa kan saaxiibkiisa qiyaamay wuxuu iska dhigaa inaan cuntadii wali cunin. Kanna ma ka yeelay saaxiibkiisa ku dhahaa hadda cuntada waa cuni karnaa malaha. Isagana wuu ka diidaa wuxuu dhahaa caloosha laga hayaa inaan mas'uul aado markaas kadib cuntada cuninaay. Isagana wuu ka aqbalaa markuu ka taga kanna waa faraxsan yahay wuxuu dhahaa hadda bis waa kaliya cunaa biisi. Isagana wax dhamooga waa faraxsan yahay meesha wax gaad islaha asiga la gaaday. Kadib biisihii wuu dhidhiminaa wuxuuna dareemaa inaysan biisi ahayn kadib inta ku lalaboodo tufa. Midkaana wuxuu taayay maadaama lacag iga baxday lacagtii dhidhil kuma dhimato waa inaan mar la dhidhimiyaa biisi. Markuu dhidhimiyana wuxuu dareemaa inaysan waxaan biisi ahayn. Muuqaalkan hadda intaan soo gaartay like saar.